السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواده يوتيوب كينا Somali Youth Scholars. haddii aad ku cusub tahay waad markii koowaad soo booqatay youtube-ka soo dhaweeyaan ku leenahay walaal. youtube-kani waa youtube aan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed anigoo soo gudbinayno deeqada waxbarashada ka jira dunida dacaladeeda, dhammaan yacni fursadaha maanta ka jira dunida dacaladeeda oo ay ka mid tahay yacni sidaa idin sheegay deeqada waxbarashada, barnaamijyadan oo kale tigrinka lootriga iyo waxyaabaha kaloo lamidka insha Allah. maanta waxaa jirta su-aal badan la isoo weydiiyey maadaama yacni maanta oo taariikh 7 ay furmi doonto natiijooyinkii DV 2023 maadaama la soo dhijin doono yacni waxaa u baahnaan doontaa yacni si aad u fiirsatay natiijooyinkaaga confirmation number au baahnaan doontaa. marka su-aasha waxay yacni hadduu iga lumay confirmation numberka يعني سيده kusoo ceshan karaa يعني maadaama yani jawaabaha inaan eegtaan rabo inaan guuleystay kale. marka waa iska basiid insha Allah videogan ku arki doonaa. marka mid kale jirta su'aal kale la isoo weydiiyay oo video barnaamijsan soo sameeyay oo ku saabsanaa yani xilliga la eegan doono jawaabaha iyo saacada. marka aniga saacada waxaan dhahay hal saac habeenimo maqribadii ayaa jawaabaha soo bixi doonaan xilligaas la eegan doono. marka yani Soomaalida isku si wax uu fahanay yani dad qof wuxuu fahmay yani nin walba meeshuu ku nool yahay iyo si gooni dhaqan gooni iyo nooc kala gooni isticmaal kulli. marka dad ay u soo adeero anigu garamayne ya hal saaciin maxaad ka wadaa. marka waxay u qaateen hal saaciinimo yani saqda dhexe yani habeennimadii halkii u qaateen. aniga reexa markeen hal saac habeenimada qofka dheedu fahmay yani hal saaciinimo yani waa xilliga maqribada yani maqribkii cishii xilliyadaas waa hal saac habeenimo. marka waxa ka xumeeyay midaa waxa telegram-kii soo galay u dhahay ya waradeeru diyaanu garamayna hal saac deeno jilci dhexaadka wada. marka hal saac weynimo kalimaana dhina waxaan ku sii dar maqribadii markii ina faantiina yani la rabo. anyways waxay aato dhimalaan waxa way kadib af Soomaaliyeed waxa way inaad kadib ka taxdirno maadaama dad badan ya beelaas dhankaas ka soo jeeday in daawanayaan إن شاء الله. هذه كذي بحاول مع اسم العدوان إن شاء الله. هذا الصومالي وانجل علينا وحياة برنامج كنا بلاونو مركار بتينا confirmation number كهالسوء جديد وحب وقندنتا ويب سايت كأسلوب الأجين ويب سايت كاني dvprogram.state.gov ويب سايت كان يعني لينكي قيبتو صوري دونا مرول بنا صوري لينكي جاز قل ويب سايت بدنا يجروك يعني ويب سايت قلدن قلن ويعني wax beenna يعني xogtaadan la helin. marka website kana booqanaysa marka website kan booqatid dan waxa ku dhufan doontaa meeshan check status marka ku dhufatid dan continue sidii doontaa dan meeshan ay ku qoran tahay forget confirmation number waa ilo yani confirmation numberkii ku dhufan doontaa dan page kan ku keen doonaa. page kan markuu ku keeno waxa laga baahan yahay meeshan diversity visa program xilliga yani programka xilliga DV 2023 miya 2021 miya 2022 miya yani agilin doonta. tusaalahan markaas hal problem kale ayaa jira arjana ina yani alla kulanteen dad badan sawir screenshot iga soo qaaday mesela meeshan dhahnay maadaama anaga DV 2023 agilin 2023 okay de ونجدينا وحولي program must be valid year يعني صوبتو سان كودا وحابا أقبليني سنة 2023 يعني ولي active معهن يعني DV program كأولو 2023 يعني ولي موسم بلابن يعني موسم فرمين الإيجشي سأي بلاوت يعني confirmation number كانوا وحاوبهن دون تامرك يعني وبهن إنا إيجتي جوابها ما دام maanta uu furmi doono taariikh 7 maanta caawo yani halkii mis 7 saa u fahmaysid maqribnimo ayuu furmi doona. markaas ayaa waxa meeshan yani uu active noqon doona. inta ka soo kaysay la caawo waxa waa sidaan oo doon sababtoo ay wili muusan bilaawanin yani active muusan noqonin. marka sidaas awgeed ayuu kaaga diidaa. marka problem ma lahan waxa eegi doonaa case number 2022 ay gelin doonaa muuna naga aqbali doona 2022 okay de hadda waxa uu naga aqbalay
meeshan inay gelisid waa ku qori kartaa sanadka mise meeshan 2020 ka bilaabana meeshan ka helay karna saarjeenay marka meeshan geli sanadka u baahan tahay 2022 DV ayaa kiiskiisa ku baraabeyn doona then meeshan waxaan sanadka geli intii mo then waxaa lagu dhahay meeshan provide the primary entry name exactly as entered meeshan waxay gelisaa yani magacyada saddexda magac oo si saxan meeshan u geli yani magaca waa Ali Abdi Mohamed duha si saxan yani baasaboorku kugu qornay oo sidoo kale uu kugu qornaa markay xariinaysan u gelisay sidaas magacyadaas u geli meeshan sidaas samee fadlan marka first name kaaga hadaa xasuusinayta middle name ka hadaa xasuusinayta as qalad u gelisay waxa waa tigtig waa saari kartaa problem yani inta ugu muhiimsan waxa last name kaaga sidoo kale meeshan xilliga dhalatay bishii taariikhdii sanadkii meeshan gelin doonta iyo inta ugu muhiimsan oo email kaaga waxa hadaa weysid waxa problem waa email gelin doontid lambarada ku qoran marka tusaalahan aan bilowno magacii ka soo qaad magaca muxuu ahaa meeshan last name kaayna Ali Amal waxa geli meeshan Yusuf ayuu ahaa meeshan Abdi Amal waxa dhaxdaas magac iskana fiir meeshan magaca koowada ku bilaabay magaca loo ku xijinaysa sidaas of Soomaali amal oo sameeyay aqri meesha ku qoran last name ka magaca u dambeey geli first name kaaga oo ah magaca kugu bilowday geli iyo middle name kaaga marka isku qaldan adii sidoo kale meeshan da'deeni bishii koowada tusaalahan taariikh 5 2002 okay meeshan email kaaga email geli yani email kaartaas geli emailka marka xariisanaysid DV ga oo aad ku qortay meeshan geli email kaartina isticmaal emailka marka xariisanaysid ku xariisa geli meeshan dan tusaalahan waxaan ku xareeyay ka soo qaad tusaalahan waxaan ku xareeyay email kan oo kaleeto email kan ayaan ku xareeyay then waxaa sameysaa lambarada inta ku qoran meeshan geli BM6 then iska checking gareeyay wax ka qaldan yihiin then waxaa dhahdaa submit markaan ahno waxa waaye page kana noo soo bixi doona yani wixii wada diyaarsan confirmation ka cusub oo nala siin doono meeshan ku soo bixi doona waa kana confirmation ka cusub hadda nala siiye magacii u dambeeyay Ali sanadka dhalanay then waxa sameeynaa waxa go'ad ku diyaar marka confirmation ka si dambe uu kaaga lumin waxa sameeynaa sawir ka qaadan doonta mise copy dhaho waxa ku sameeyay garanay confirmation kaaga diyaar waa lagu siiyay sidana diyaar ku yahay then waxa uu laga rabo inay sameysid character kan lambarada meesha ku qoran ina meesha gelisid C8BKP then submit ayaa leedahay marka submit dhahda jawaabtii arki doontaa inaan ku guuleystay in kaleeto waxaan rajaynayaa video wax ka faa'iideen waxa waaye video insha Allah halana ku keeni doona inaan ku sii dheeraado maro walaalaha kala sii gaarsii videoyada dad u baahan yani aanan garanaynin sida loo sameeyo waxaani marka maadaama waxaan lacag ka bixinaaday just free share gareeyay wax ka faa'iideen laga yaabo markii intaan hada soo daawanayso video jazakumullahu khairan marka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh